fadlan walaalkeen Soomaaliyeed haddii aad nagu cusubtahay subscribe taawo furo gambaleelka yar si kugu soo dhaca muuqaalada dambe haddii aad xiiseynayso arrimaha jaceylka. waxaa tahay dumarka mid ugu quruxda badan, waxaa tahay dumarka mid ugu qaalisan, daymanka waad ka qaalisan tahay. fiiri hareerahaaga, quruxdan iyo bilicdan kuu muuqato waa midda wejigaaga. iftiinka qoraxda soo baxayso waa indhahaaga nuurkiisa. inaan ku waayo ma rabo, haddii aan ku waayo waxay la mid tahay anigu waayo mustaqbalkayga. maxaa yeelay adigu waxaa tahay mustaqbalkayga, noloshayda iyo waxaan adduunka ku joogo. haddii aan ku waayo noloshaan waaye, haddii aan ku hilmaamane nafteeda ayaan hilmaamay. adigu waxaa tahay nafteeda, lagama yaabo inaan ku hilmaamo. waxaa tahay boqorada dumarka, waxaa tahay bilicda nolosheeda, waxaa tahay ifiyaha nolosheeda, waxaa tahay hagaajiyaha mustaqbalkayga, waxaa tahay dumarka midaan kala baxay, waxaa tahay midaan doortay, waxaa tahay midaan ku haminayay. waxaan doonayaa inaan xiriirkeena adkeeyo, maxaa yeelay adduunkan waxaa ku nool intaasoo milyan oo xaasidiin ah, kuwaasi oo dantooda ay tahay inay kala fogeeyaan lamaanaha isjecel. sidaasi ayaan ku jeclaystay inaan xiriirkeena adkeeyo. waxaan doonayaa inaan iska fogeeyo dhaleeceeyayaasha hareeraheena iyo kuwa naga fogba. dumarka oo dhan waa isku dhaqan, waa isku dabeecad, waa isku fikir, balse in badan waad ka duwan tahay dumarkaasi oo dhan. maxaa yeelay waxaad leedahay astaamo gaar kuu ah. astaamahaasi waxaa ka mid ah dhaqan fiican, hadallo wanaagsan iyo qalbi furan, taasoo keentay inaan aniga qalbigayga kugu aamino oo aan jacayl kula sameeyo, nafsadeedana aan kugu hibeeyo. sax, anigu waan ku jeclahay, adiguna waad jeceshahay, balse waxaan doonayaa inaan xiriirkeena adkeeno oo aan iska ilaalino nacabka iyo xaasidka. balse anigu waxaan doonayaa inaan ka dhigno nolosheena mid aad iyo aad u qaali ah. waxaa tahay midda aan ugu jeclahay ee dunida, waxaa tahay gabadha ugu quruxda badan ee dunida, waxaa tahay mustaqbalkayga, waxaa tahay qayb ka mid ah noloshayda. ma doonayo inay wax yar ku gaaraan, ma doonayo inaan ku hilmaamo. dumarka tan ugu fiican ayaad tahay, dumarka tan ugu sareysa ayaad tahay.